السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قدوميها ميدا وردية قرنك الصوماليات دالك تركيا. أنا كلام معركة ربا هل كان إن يوسف قدبيه عبدي الصوماليات تعالي إن دالك تركيا وحكبرته وحاجر تعبش آد يوصل نقطة أو حفيز كان مر والبكوس ولا لعبته. شاذ حيسكوج تعالى ودنا دنا معركة وحواي عبدي ذا وليس بدن ومركز دالك تركيا مادان قبصده وليس ذا حيسكوج جيران ardayda Soomaaliyeed marka hore joogto mid dawli ah mid bareefad ah laakiin markii wadankii imaadaan waxay la kulmaan culays fara badan wixii laga soo dhaadhiciyay oo maaragtay sax aynan ahayn iyo markii jaamacadii ay tagaan jaamacadii oo laga dhaadhiciyay inay free ku dhiganayaan iyo jeefkii iyo cuntadii iyo wixii dhan oo free looga dhigay laakiin markii imaadaan waxay la kulmaan culays fara badan jaamacadii oo lacag maaragtay markii dambe dhaha lacag lagu dhigtaa jeefkii hadan culays kala ka yimaado cabashadaasi maaragtay marar badan way nagu soo noqotay laakiin markaan go'aan anaga waxaan ku gaarnay inaan barnaamijkii scholarship-yadii maaragtay inaan dhaxda aan ka galno inaan ardaydii ba anaga aan soo raadino in maaragtay aan la kulano meelaha ugu muhiimsan oo maaragtay laga heli karo scholarship-ka ama jaamacadaha ha noqdaan ama ha noqdaan agenciyada ugu waaweyn ee dalka Turkiga ku yaalo in maaragtay fursadihii aan ka helno waxa kale oo jiro maaragtay arday Soomaaliyeed sidoo meel walba ay joogaan dunida daafiyado waxa maaragtay oo dalka Turkiga wax ka rabto sidoo aniga wakiil ayaan u ahay waxa jira markaan scholarship kan soo bandhignay arday badan oo joogto wadamo badan sida Kenya maaragtay Ethiopia ama Jigjiga sida aad u taqaano Soomaali galbeed iyo meelo kale oo kala duwan arday badan oo naga soo wacda jirto oo dhahayo scholarship-yadan sidee ugu faa'iideysan karnaa waxa maaragtay laba fursad baa idin siinay fursad ah haddii aad rabto maaragtay in aad adiga meesha aad joogto aad ka xareysanaysid fursadaasi waa idin furan tahay muhiimadu ma ahan passport nationality Soomaali laakiin magaca muhiimadu waxa waaye ma yahay qof Soomaaliya intaas ayaa muhiim noo ah fursadaha waxbarasho hadaan idin soo gudbino fursadahaas waxa ka mid maaragtay scholarship full scholarship mid maaragtay half scholarship sida Soomaaliana ay ugu dhaho full scholarship waxay isku jirtaa in aad heli doontid waxbarasho free ah oo lacag aan laga rabin laba inaad heli doontid cunto oo maaragtay aad ku leedahay jaamacado inaad heli doontid jeef oo free ah oo lacag laga rabin because marka hore way fududahay waalidkiina oo lacag marka hore ardayga ka soo bixiyo laakiin ilaa jaamacada ka dhamay way ku adagtahay waalidkiina oo lacag ka bixiyo inaan idin sheegnayo awal aniga waxaan haajirnay cabashada ardayda bas inaan xalino laakiin waxaan aad ugu dadaalnay inaan aniga fursadaasi aan ka raadino meeshii ugu fudud aan ka heli karno waxaan ka helnay fursadaasi shirkadda Askun oo maaragtay heshiis fara badan la leh jaamacado fara badan dalka Turkiga ku yaalo mid dawli ah noqday mid bareefadba aad iyo aad maaragtay si gooni ugu mahad celinaya insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah anigoo wakiil idinka in garantigaas noqon doonto mid maaragtay aad ka wada faa'iideysan doontaan haddii waalid ardayda waxay maaragtay ka kafaalad qaadeen in ay ka soo wadi doonaan sida ay sheegeen wax walba oo tasiilaad ama ha noqoto dhinaca eelboorka ama ha noqoto maaragtay dhinaca waxbarashada dhinac walba inay maaragtay ay ka kafaalad qaadi doonaan aad iyo aad maaragtay taasaan ugu mahad celinayna ugu dambeyn waxaa nagala soo xiriiri kartaan maaragtay fursadani banaan oo aan idin soo bandhignay page-ka aan ku leenahay midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed maaragtay waa kala soo xiriiri kartaa haddii lacala cabashada dhinacaasi aad maaragtay fursadaasi cabashada dhinacaas aad ugu faa'iideyso waxaa kale oo maaragtay kala soo xiriiri kartaan shirkadda gadaal naga dambayso ah shirkadda aan fursadani aan maaragtay ka helnay Askun aad iyo aad u mahadsantihiin ardayda Soomaaliyeed aad iyo aad maaragtay waxaan idin leeyahay ka bagasho inaad ka faa'iideystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.